ragow dumar badan guursada markaas saas dhahay iskama kiin dhahay ee waxa idin leeyahay waxa idinka danihiina hadaa hal xaas leedahay xaas labaad guurso hadaa laba xaas la tahay saddex mid saddexaad guurso hadaa saddexdii sidni ilaa mid afraad buuxi sababtoo xaasisku iska dhibadan yihiin waxa laga yaabaa inay mid ka xanaaqdo barbaleem iyo buuq ay kugu furto bini'aadana taa waxa u baahan tahay meel aan maskaxda ku degsatid marka laba xaasla taa waxa tahay nin tartan loogu jiro oo qofka kale isleeyahay soo jiido waxaan u sameeyay waxaan si markaas waxa helaysaa kolkoolin aad u far badan iska bulo marka idig sheekada kuma jirtiin iska fadhiista bal ka waran hadii aad tahay hal xaasle in lagu tartamo warkeeda daayay waxa la isleeyahay meel uu aado ama meel kale ma heesto markaas inta lagu tuntaa wixii la rabana laga sameeysanaa hada iska bulo taani horta adiga waxa waaye ina wax raadisid fadhiga ka kacdaa xaaslayaasha baa leeyahay labay saddexii adoo iska bulaa marka inta joogtaa fadhiga ka kaca ina guursatid aan nolol sameysatid isku day cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday dadka hal xaaslayaasha inay ka dhibadan yihiin dadka laba xaaslayaasha waxa taa ula jeeda dadka laba xaaslayaasha ayaa dhib yar sababtoo qofka markuu hal xaas qabo waa qof oo hal il wax ka arkayo kaliya meel kale ku nasameyso meel kale buuq uga soo taga malahan mar walba hadii lagu buuqo hadii lagu qeeliyo hadii la cadaadiyo waa in iska soo horjeedaan laakiin marka qofka laba xaas leeyahay hadii meeshan uu fahmo waayo xaafadiska lu taga oo iska nasana sababta ay idin leeyahay xaas labaad guursadana waxay tahay waa in lagu xiiso xaaskan hada isku dhacdiin isku buuqdiin ka tagtid waa inay ku soo xiistaa marka soo laabanaysid oo xumaatada iyo dagaalkii cuqdadii la iloobo adoo lagu xiiso qaba meeshan imaato muhiimadu waa intaas